waa koox dhalinyaro ah oo galabtii isugu yimaado goob ay ku ciyaaraan ciyaar dhaqameedka. kooxdan oo la magac baxday Hidabila kana dhisan magaalada Garowe waa dhalinyaro si iskooda isugu abaabulay soo nooleynta ciyaar dhaqameedka sida ay sheegeen. horta waxa la aasaasay kooxdan shantii bishii koowaad 2021 waxay leedahay macallimiin dhowr ah hadda la kalmid oo kaliya jooga waa dhalinyaro isku xisaartay dib u soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka iyo afka Soomaaliga haddana rajaynaysa heer wacan inay ka gaarto garanaysa soo nooleynta iyo agabka dhaqanka. macalinka tababarka siiyo kooxdan ayaan weydiiyay inta ay u kala baxaan ciyaar dhaqameedka ay kooxdan ku tababarato. ciyaaraha aanu barnana waxa kamid ah dhaanta kaliya kuma eeg waxayna u kala baxaan barbareeyo kale oo gabdhaha iyo wiilashuba ay barbar ka jabiyaan dhinaca ama ruqusho oo garbarogo loo yaqaano waxa kan leeyahay inta la foorsado wiilashii gabdhuhuba ay maxay ahayd ka jabiyaan luqunta iyo garbaho soo rogan waxa leeyahay ciyaar jaandheer ba jirto oo dhaanta jaandheer oo gabdhuhuna ay caad u ciyaarayaan wiilashuna ay marna dib u soo ordayaan marna gadaal u soo ordayaan marka aad ba u badan yihiin qaybaha dhaantadu. qaar kamida dhalinyarada Hidabila waxa ay cabirayaan markii ay ku soo biireen kooxda iyo hadda farqiga u dhaxeeya. farqi weyn noo dhaxeeya because shalay markaan guriga joogo waxa ma aanay aqoon haddana wax badan baa ka faa'iido meel kasta la mari karo meel kasta aad joogna kala ciyaari karo. wallahi farqi weyn aad u weyn baa dhaxeeya markaan ku soo biirayay anigoo interest ku ah dhaqanka Soomaalida iyo ciyaaraha ayaan kooxdan ka war helay bacdi waa ku soo biiray markii hore ma aanay aqoon ciyaarta laakiin hadda waa bartay ma sha Allah aad baan u ciyaari karaa dhaantada. dhalinyaradan oo u badan arday wax ka barata iskoolada magaalada Garowe waxa aan weydiiyay bal cid ka taageerta barnaamijkan. runtii ma jirto cid naga taageerta haddii noqoto dhar haddii noqoto meel aad degan haddii noqoto dalxiis haddii noqoto barnaamij kasta oo anaga iyo jeebkayga iyo waqtishkayga go'aankayga u gaaray. isku soo duubo kooxda Hidabila waxa ay isku diyaarinaysaa inay ka mid noqoto kooxaha waaweyn ee ciyaar dhaqameedka. Cabdiweli Faarax, Puntland Post, Garowe. Puntland Post, warar sugan iyo warbixino dheelitiran.